الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين afar dhacdo oo waaweyn baa gaalada muddo 4 toddobaad gudahood ah ku dhacay oo isugu xigsaday oo kala ah islaamidii Xamsa, islaamidii Cumar, rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo gorgoradii ay soo bandhigeen diiday iyo bani Mudallib iyo bani Hashim oo dhan oo muslimkoodii iyo gaalkoodiiba isu habar wacdeen oo isu baahaysteen ilaalinta iyo difaacidda rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Mushrikiintii way wareereen, inay wareeraanna waaba ahayd, waxayna ogaadeen haddii ay ku dhaqaaqaan dilida Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu dhiig badani dartii u daadanayo oo ay ku dabar go'ayaan. Markii ay taa garwaaqsadeen bay ka leexdeen oo dulmi kale oo aan dil ahayn bay u weecdeen, laakiin ka daran wixii ay horay u soo faleen oo dhan. Waxay mushrikiintii Maka ku shireen meel la yiraahdo Waadi al-Muhassab, waxayna dhiseen gaashaanbuur lid iyo col ku ah ilma Hashim iyo ilma Mudallib. Waxayna go'aan ku gaareen in aysan ka guursan una guurin oo wax kala gadan oo la fariisan dhexgelin oo guryahooda gelin oo aysan la hadlin sheer ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam soo dhiibaan oo la dilo. Waxayna waxaas ku qoreen warqad iyagoo ahdi iyo wacad ku kala qaatay inaysan bani Hashim weligeed heshiis la gelin sheer ay Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo gacan geliyaan. warqadda waxa gacantiisa ku qoray Baqid bin Amir bin Hashim. Markaas buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam habaaray oo ay gacantii qalashay. Markii ahdiga la abiyay oo warqadda lagu qoray, warqaddii waxa lagu dhajiyay Kacbada gudaheeda si looga haybaysto jabinteeda. Markaas bay bani Hashim iyo bani Mudallib waxay u soocmeen muslimkoodii iyo gaalkoodiiba. Abu Lahab ma ahe lugta xaafadda Abu Talib, halkaas baana lagu gooyay laga soo bilaabo bishii Muharram sanadkii 7aad ee nabinimada ilaa sanadkii 10aad, muddo 3 sanadood ah waxay ku jireen go'doomin adag. Go'doomintii waa adkaatay, cuntadii iyo alaabtiina waa laga gooyay. Raashin kasta oo Maka soo galana gaaladu durbadiiba iyaga baa gadan jiray oo la wareegi jiray si aysan dadka la go'doonshay fursad u helin. Markaas bay qolooyinkii Waraqa rafaadeen oo waxay dani baday inay caleemaha iyo hargaha cunaan, waxaana lugta gudaheeda laga maqli jiray yuuska caruurtooda iyo dumarkooda gaajo darteed. Wax qarsoodi loogu geeyo ma ahee wax kalena may gaari jirin. Waraqana kama ay soo bixi jirin muddada bilaha caagan lagu jiro ma ahee. Markaasna waxay wax ka gadan jireen safarada Maka dibadda uga yimaada, iyadoo weliba xilligaas bilaha caagan oo badeecad badan tahay ay Quraysh suuqa ku qaaliyeyn jirtay oo ku faliji jirtay si ay wax u gadan kari waayaan. Hakim bin Hisam marar badan buu eedadii Khadiija qamadi u soo qaadi jiray. Mar baana waxaa la kulmay Abu Jahl oo iska laalaadiyay oo isku dayay inuu u diido, waxaase kala dhex galay Al-Bukhtari oo u suura galiyay inuu eedadii qamadida u geeyo. Abu Talib wuxuu aad ugu biqi jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Markii la kala seexdo buuna rasuulka dhihi jiray gogashayda seexo. Gogasha rasuulkana wuxuu ku seexin jiray dhalinyarada xigtada mid ka mid ah, waliba wiilashiisa iyo walaalihiis, si ciidii damacda inay rasuulka sallallahu alayhi wasallam gaadmo ugu disho ay u weydo. Markii la gaaro xilliga xajka bay rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo muslimiintuba tagi jireen oo dadka la kulmi jireen oo diinta islaamka ugu yeeri jireen. 3 sano oo kaamil ah baa gudubtay iyadoo xaaladdu sideedii tahay oo goyntii wali lagu hayo muslimiintii iyo bani Hashim iyo bani Mudallib. Markii la soo gaaray bishii Muharram ee sanadkii 10aad ee nabinimada baa waraaqdii iyo ahdigii ku qornaa la buriyay. Maxaa yeelay markii horeba Quraysh waxay isugu jirtay dad raali ka ah ahdiga goynta iyo dad lagu jujuubay. Dadkii aan awalba raalida ka ahayn oo sanka laga geliyay baana jabiyay. waxaana arrintaa isu xil saaray Hisham bin Amr oo awalba bani Hashim xiriirin jiray oo Waraqa raashin ugu keeni jiray. Wuxuu u tagay 5 nin oo Quraysh ah oo xasuusiyay wada dhalashada iyo rixnimadii ka dhaxaysay bani Hashim iyo bani Mudallib. Waxay 5 nin oo qowjada ahaa isugu tageen buurta Al-Hun agteeda, waxayna wacad ku kala qaateen inay warqadaas buriyaan. Suhayr wuxuu yiri aniga idinku hor hadlaya. Markii ay waabariisteen bay golahoodii u soo jarmaadeen. Suhayr wuxuu soo kalahay isagoo isku joog qaba oo inta 7 jeer dawaafay buu dadka ku soo jeesaday oo ku yiri reer Makow ma cuntaan cunaynaa, dharna ma qaadanaynaa, iyadoo reer bani Hashim geeri qarkeed yihiin.
oo aan waxba laga gadanayn, waxba aysan iibsanayn. Wallaahi baana fariisanayn jeer la googooyo warqadaas daalimada ah ee dadka kala goysay. Wuxuu yiri Abu Jahl oo masjidka dhinac ka joogay, waa beenta, wallaahi baan loo goynay. Samaca bin al-Aswad baa yiri, wallaahi adigaa ka been badan, qorideedana raalli kama aanu ahayn markii aad qoranaysay. Wuxuu yiri Abul Bukhtari, Samca waa runtii, waxa lagu qoray raalli kama ahin, mana aaminsanin, mana aanu ansixin. Wuxuu yiri Al-Mudcim bin Cadiyana, run baad sheegteen, ciddii idin khilaafsanina waa beenteed, alle baan bari uga nahay iyada iyo waxa lagu qorayba. Hisham bin Camarna hadal sidaa u dhow wuu yiri, markaas buu Abu Jahl yiri, waxa kani waa tala habeennimo la soo goostay oo meel aan halkan ahayn looga soo tashaday. Abu Talibna daraf masjidka abuu fadhiyay, wuxuuna meesha u yimid alle baa rasuulkiisa u kashifay arrinta warqadda oo u sheegay inuu aboor ku saliday, cunay wixii dulmi iyo rixim goysnimo ku qornaa, intii magaca alle ku qornaa ma ahe. Markaas buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam adeerkii u sheegay, markaasuu isaguna inta Quraysh u yimid buu u sheegay wixii wiilka walaalkii ku yiri, oo yiri haddii ay beentii noqoto waa isaga kiin dhexbaxaya, haddiise ay runtii noqoto waa inaan goynta iyo dulmiga iyaga ka noqota. Markaasay yidhaahdeen garbaad sheegtay. Markii Abu Jahl iyo raggii ay hadalka isdhaafsadeen, kadibna Al-Mudcim baa warqadii u kacay si uu u jeexjeexo. Wuxuu u tegay iyadoo aboor cunay, magacaagan allow ku bilaabaynaa, meeshii ay kaga tiil iyo meelihii kale ee magaca alle ku xusnaa ma ahe. Meelahaas iyaga aboor ma cunin, sidaas baana warqadii iyo heshiiskii goyntu lagu jabiyey oo lagu buriyey warqadii ay ku xayirnaayeen, waraqii ay ku xayirnaayeenna uga soo baxeen. Gaaladuna waxay arkeen calaamad weyn oo nebinimadaysa muujinaysa, laakiin way iska indha tireen oo waxba kuma ay qaadan, oo waxay ku sii fogaadeen dulmigoodii iyo diidmadii. Walaalayaal, darsigeenu maanta halka ayuu inoo joogayaa. Inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.